madaxweynaheena soo dhawow wariye maxaad iga eegaysaa ku garanaya ayaa sire way baayo baa ninkii xasan shahar ma aragtay miyaanad daawan baan ku reerka jibriil yoonisiyo nuur yoonisiyo miyaanad awdal iyo sal daawan bismillaahir rahmaanir rahiim fariin bay direen codna kulmiye codna hilla waxa la yiri saaxiibka kula siday naftaadiyo lama siman socota ninka dilka difaacay ninka diyaarada u soo gaday ninka hore u mariyay ee horumarkiina inuu sii wada jecel ee adduunyadii oo dhammi maanta inaga faaloonayso dakaanagu ogo marka waxaan taraamna wuxuu yiri hadii anaanta la doorto Soomaaliland waan aqoonsanaya taana fooqana kala la yidhiseen cabdikariin axmed mooge soo ma arkaysid maayirkii magaalada Hargeysa ma yahay wuxuu ku dhaartay xisbigaasi inuu dhisi doono saddexdii sanadood hore uu u samro meel buu ku qoorsanaa imika markuu isiri dabayl baa timidna waa godka ka soo bowday waa nin go'aan loo meel loogu soo hagaagal taageersatay cabdikariin axmed mooge inuu go'aan leeyahay go'aankiisa waa ku taageersanay inuu madaxweynaha quru yiraahdo maalintii isaga ii saamaxay inaan maayir noqdo laakiin xildhibaan waa la ii soo durto 26 kuma ku soo baxay taasi kelmadaas way yara hoos martay waana dhalinyaro madaxweynaheena soo dhawow wariye maxaad iga eegaysaa ku garanaya ayaa sire faaduma waa maxay heestana digaysanaysa madaxweynaheena soo dhawow maxay uga jeedaa waxa way horta inuu qof qabiil meeyahay qof kooxeedna meeyahay shanta Soomaaliyeed baan u wada doodaa Soomaaliland oo dhan baan kii qaldan iyo kii toosan baan ku ciyaa marka maanta waxa weeyaan de kulmiya fariin buu diray anu hadba xukuumadii joogtaan ka agdhawahay udubaan ka agdhawaa haddana Siiraan ka agdhawaa maantana dawladdan joogtaan ka agdhawahay waayo anu marnaba mucaarad ma noqdo Soomaad garanay marka waxa weeyaan maanta de horta magaaladii Boorama ma daawad bismillaahir rahmaanir rahiim maxaa ka dhacay bismillah miyaanad daawan baan ku reerka jibriil yoonisiyo nuur yoonisiyo miyaanad awdal iyo sal daawan bismillaahir rahmaanir rahiim fariin bay direen codna kulmiye codna hilla fariintii shalay fariinta maanta tee saameyn lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim de horta midna lama yaso laakiin maanta waad arkaysaa aniga iga hordhicin waad arkaysaa dalka bari iyo galbeed saameynta maanta kulmiye soo saaray jawaab cad bay direen taasina waxa weeyaan shanta Soomaaliyeed oo dhammi waxay taageersan yihiin mucaaradka oo markaad xitaa baraha bulshada dood qabato waxa kugu badan Soomaalida kala ku oranaya wadani ha soo baxo ha soo noqotee markay gudaha noqoto waxaad ogsoonaata dalka gudihiisa codaynaya taasina waxay u saamaxaysaa xukuumadii oo dadka shacabka laabta gashatay ayaa u saamaxaysaa in xukuumadii jeclaadaan mid kale haddana dadka waxa sii jeclaysiiyay khilaafka ka soo baxay asxaabteennan mucaaradka waa adiga arkayay dad foosto wada riixayay oo de waa mucaaradkii wadiga arkahayo wadani maana iyagu meel isugu tagin oo waliba aanu wadani ahaan xisbi 20 jir ah oo isagu urur yar hoosta iska gali codkii baa la isku khilaafsan yahay ana labadaba la iyo aniguna mid baan leedna mid baan leeyahay foostadii markaa waa lagu kala haraya xirsi meel buu isagu ka hadlaya wali mu soo shacab bixin odaygan la yiraahdo wasiirkii arrimaha gudaha inuu haabaan malaynayaa ma ayaan la oran jiray Ismaaciil yare wadigan arkayay xitaa ilaa booliskii buu duqeeyay madaxweyne kasto yimaada wuxuu xukumaa waa dad adoo dad madaxweyne soo noqonayso waxa la rabaa in dadka isku wato kii ku kaas horjeediyo kii kula rabayba marka waxa weeyaan dhamaantood horta anigu ii siman yihiin haddana waxa la yiri saaxiibka kula siday naftaadiyo lama siman socota ninka dilka difaacay ninka diyaarada u soo gaday ninka hore u mariyay ee horumarkiina inuu sii wada jecel ee adduunyadii oo dhammi maanta inaga faaloonayso dakaanagu ogo faaduma waxaad ka dhawaajisoo tiri anigu qof qabyaaladeed miihi oo qabyaalad kuma taageerayo iyadoo loogay madaxweynaha inaad isku deegaan tihiin hadda lafteeda ma la oran karaa faaduma afku bay leedahay qof qabyaaladeed miihi hadday madaxweynaha isku deegaan yihiin ay taageersantay ma waxaad iga maqashay aniga reer hebel haddaan dalka xukumaynin balaaya dhici doonto ma iga maqashay aniga dhicina mayso hadday maanta xisbi kala soo baxo ta ugu horeysa waxaan balyeynaysaa marka aanu qof qabyaaladeed ma mid kale asxaabtii sidaydan oo kale idaacadahan ka duruudaraa lahayd qof walba reer buu raacay oo isku sawiray anigu reer ma raacin madaxweyne iyo xukuumadan isku sawiraya laygu jecel yahay laygu nibcaayaba adiguna wariyaaba too dhexdhexaad ba too cidna shaqo kuma leeyahay wixii hadalad dadka dhibaato u keenaya inaad dhidin ku samayso iska tuurtaad leedahay hadduu hadalkaygaas ku qancin waayo anigana haygu danayn qof adigu aad taqaan ha ugu danayn wixii dalka dhibaato ku awatuuraysa dadka aaminsan in ay socoto dabayl isbedel doon adiga maxaad leedahay dadka maxaa kaaga baxay dadka le dabayl isbedel doon baa socda iyo adigoo le maanta madaxweyne Muuse Biixi baa leeyahay shan kale
dadka halkiis ka dhaafsiin labada dhinac horta isbedelka hadduu Faysal meesha fariisanayo dad marxaataad ka tooshalay ma dhalan taasi isbedel baynu oranaynaa laakiin asxaabteena kale gudoomiye baarlamaan bay soo mareen wasiiray soo mareen ninka shalay toole wasiirkii soo maray duulistii hawada ee barxadda airport ku xidhneed hadaan gaariga in yar ila joogsado iga qaadayay wan sikin lacag iga qaadayay dawaa waxay ugu adiga daayeen $1 baa la iga qaadayay sikin intaas ay isu taago hadda ka sii badnaatana kaba daran ninka shalay madaxtooyada uu siiraayo xoolihiisii oo dhan u dhiibay ee wadada ceergaaba u xil saaray ee inta wixii badaadiyay odaga maanta meesha jooga ama madaxweynaha ayana sharaftiisa dilinay in ka cararay de walaala waxaan ku yiri deegaanyo ridda ninkana ridi doonte annagu waxna tuuro taaguma hayno odagii Biden ee ogayd waxa ka codeeyay xisbigiisa dimuqraadiga waxa ila itaalkaagi baa jilco waad iska dhacaysa dalkuna cid waduu u baahan yahay Kamala Harris baa loo soo joojiyay Kamala Harrisna ninkii adkaaya Trump baa la taagay marka waxa Trumpna wuxuu yiri hadii anaanta la doorto Soomaaliland waana qoonsanaya taana fooqana kala la dhisay nabadgelyo maxay tahay fariintu dambeysada halkan ka direyso dad badan baa Faadumo is casilay oo xukuumadda Muuse Biixi iyo xisbiga kulmiyaba saluugsan Faadumona waxay tir xisbiga kulmiyana waa la taabacsay bal dadka maxay tahay fariinta عسل isaga khusaysa imka Cabdikariin Axmed Mooge soo ma arkaysid maayirkii magaalada Hargeysa ma yahay xisbigu ka soo baxay wuxuu ku dhaartay xisbigaasi inuu dhisi doono 3 sanadood hore uu u samro meel buu ku xuursanaa imka markuu isiri dabayl baa timidna waa godka ka soo bowday waa nin go'aan loo meel loogu soo hagaagal leh samaad garan ku taageersatay Cabdikariin Axmed Mooge inuu go'aan leeyahay ha go'aankiisa waa ku taageersanay xisbigiisu marka uu ka soo baxay ama ha soo baxay ama ha dhaco waa qof go'aan loogu soo hagaagal oo taasi sharab ceeb maaha oo in lagu qoonsado ma hata inuu madaxweynaha quru yiraahdo maalintii isaga saamaxay inaan maayir noqdo laakiin xildhibaan waa la ii soo durto 26 kuma ku soo baxay taasi kelmadaas way yara hoos martay waana dhalinyaro hasan noqotay dadka aan go'aan kala hayn waxa la yiri cimri tagay ceeb lagu ma sababtiyo way baayo baay ninkii Xasan Shahar ma aragtay